بسم الله الرحمن الرحيم. قيادتك وحنا كمان في بداية channel في سيدوات 10 عصب يمان كلا عصب وإنه دوبي دورنا مانتا 10 كسابسن ديسين كم بينه مانتا إن شاء الله ديسين كلين دورنا ديسين كلا فكشة كان يا أو موضوع كسابسن يحوي وفور بانر وي وبوري رو عنتدا حيسين يا عنتوينك ولبا عنتدا حيسين يا وبيجر cuntada beegarka hamburgerka iyo waxa weeye sidaa darteed waan bilaabi doonaa waxaan isticmaali doonaa Photoshop ayaan ku dhisan gareyn doonaa insha Allah sidaa darteed la socosho wanaagsan daawasho wacan ugu horeyn application-kaaga Photoshop ayaad soo kicinaysaa Photoshop marka soo kiciso Adobe Photoshop-kaaga waxaad daaqadan ugu horeysa ku soo baxaysa waxaad ku dhufanaysaa insha Allah new file create new file halkaas ku dhufanaysaa ugu sareysa oo waxaan abuuri doonaa design cusub aynu sameyn doonaa new file baad ku dhufanaysaa inoo soo kacaya insha Allah sidan buu inoogu soo bixi doonaa qaabkan haddii uu kugu soo baxo waraaq waxaad dooranaysaa custom baad ka dooranaysaa widthka cabirka designkiisa ayaynu sameyn doonaa widthkiisa ogaa cabir kasta design kasta wuxuu leeyahay width iyo height cabir buu leeyahay cabir okay sidaa darteed markii ugu horeysa waxa wanaagsan daawade inaad karan garto inaad taqaano designka nooca design gareynaysa cabirkiisu intee buu yahay inaad mar walba waxa ku inay ku qorsheysan yihiin waqti sidaa darteed maanta kan aynu design gareynaa insha Allah waa bahal inoo qorsheysan oo aan qorsheeyay waa design aan qorsheeyay sidaa darteed widthkiisa designka widthkiisu waa 820 pixel 820 pixel baad ka dhiganaysaa widthka height-kana waxaad ka dhiganaysaa insha Allah 360 pixel waxaad nooca type-ka waxaad ka dooranaysaa pixels intaasoo qayb ku soo saari doonaa sidaa darteed pixel baad ka dooranaysaa resolution-ka waxaad ka dhiganaysaa 300 baad ka dhiganaysaa sabab 300 sababta uga dhiganayna waxa weeye si design-ka hadhowta uu quality u yeesho output-ka inoo soo baxaya si uu noqdo wax resolution-kiisu yahay quality output inuu quality inoo noqdaan doonaa sidaa darteed 300 haddii ka dhigano shaygan qurux buu noqonayaa oo quality-giisa fiicnaanaya color mode-ka waxaan ka dhigan doonaa RGB color baan ka dhigan doonaa oo inagu imika waxaan isticmaali doonaa RGB color not CMYK ma isticmaali doono RGB color baan isticmaali doonaa oo social media ayaynu ku post gareynaynaa oo u isticmaalaynaa inta kadib halkaana magac baad la bixi doontaa tusaale ahaan oo kale magaca baan la bixi doonaa anigu magacaasaan la bixi doonaa adiguna hadhowto magaca la bixi doontaa adiga ku taala inta kadib waxaanu sameyn doonaa waan abuuri doonaa create ku dhufanaysaa halkaas ku dhufanaysaa okay akhyaaray daawadayaal qaabkan buu inoogu soo baxayaa waraaqdii aan design gareynay qaabkan bay hadhow u ekaanaysaa sidaa darteed waxaad arkaysaa waraaqdan inay u badan tahay dhinaca widthka aad ugu badan tahay oo waxaynu la barbar dhigaynaa maxay taynu ekaysiinana waa nooca marka waxaan maleeyahay si fiican la fahansaan taynu ekaysiinana waa tan waxaan doonaynaa taynu design gareynayno rabo inaan design gareynaa waa poster banner kan baan design gareyn doonaa food banner kan ayaynu design gareyn doonaa insha Allah step by step ula socda way ugu horeyn waxaanu sameyn doonaa ugu horeyntii waxaanu soo kicin doonaa layerska aad furanaysaa qaybta layerska ayaad furanay qaybta layerska aad furan doontaa qaybta layerska marka aad furato daawade qaybtada layersku daawada waa inuu ku furan yahay mar walba qaybta layersku waa inuu ku furan yahay waxa ka sii wacnaan lahayd iyadana inaad marka ugu horeyso workspace-yada lafteeda samaysatana waa muhiim workspace ku gaara ayaa daawada fiican oo noocan inaadan isticmaalin kuwan waa inaadan isticmaalin ee workspace aad diyaarsato workspace-kaasi waa mar gaaraynu bal haddaynu waqti helno mar gaaraan video ka diyaarin doonaa bal sida loo isticmaalo application-ka Photoshop qaabka loo isticmaalo haddaynu doono markana ka diyaarin doonaa laakiin bal iminka waxa wanaagsan inaad workspace samaysato workspace-ku waa maxay waa halka aad kala soconayso xogtaada tusaale markasta oo aad soo kicinayso application-ka Photoshop waxa lagu geynayaa workspace-ka samaysatay workspace-ku markaa waa maxay waa
ubucdii guud ee photoshopka tusaale ahaan oo kale cashar kastood samaysato intii aad ku abuuratay unbaa lagu keenaya sidaa darteed waa muhiim sidaa darteed anigu workspace-ka horaan u samaystay waan iga arkaya xasan intaa kadib layerska taaban doontaan layerskaas ayaad ku dhufan doontaan oo halkan kasoo muuqan doona layerska waad weynaysan kartaa wuu inaga yaryahay waxaad leedahay medium large baad ka dhigi kartaa largekaas indeyna okay intaa daawade marka aynu samaano midna ogaada daawadayaal backgroundka mar walba backgroundka originalka laguma sameeyo mar walba backgroundka originalkiisa laguma sameeyo maxay shaqada laguma qabto waxaa lagu qabtaa ka copy originalka mar walba shaqada laguma qabto ee waxaynu mid baynu copy garayn doonaa kanaynu ka copy garanaynaa mid kale kaasaynu ku qaban doonaa shaqada tusaale haddaan idin tuso waxaan sameynaynaa kanaynu duplicate ku samayn doonaa oo mid kale ka copy garaynaynaa dabeetana waxaan u bixin doonaa magaca doontaad ula bixi kartaa tusaale ahaan oo kale waxaan ula baxayaa iminka xasan baad ula bixi doontaa xasan markaad ula baxdo waad sameynaysaa dabeetana kan kuma shaqada ku qaban mayno kaynu shaqada ku qabanaynaa muxuu noqonayaa kaa sare kaasaruu shaqada noqonayaa intaa haddaan sameyno waxaynu samayn doonaa haddaba inaynu bal colorkii ku darno sidaad halkan ba ka arkaysaan dee color buu watay soomaa waa idinka arkaya color background ba xagga hoose ka jira backgroundkaasaynu insha allah ka dhigi doonaa si fiican ha loola socdo backgroundka markaan doonayno inaan ka dhigno waxaynu taaban doonaa waxaynu iminka backgroundka inagaan isticmaali doonaa waa gradient color baynu isticmaali doonaa aynu ku qabanaynaa shaqada gradient color waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay fx ayaad taabanaysaa fx markaad taabato waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay gradient overlay waad ku dhufanaysaa wuu kuu soo kacayaa waa sugay okay akhyaaray waxaan isticmaali doonaa labadan color background gradientiga waxaan idinku yidhi background gradientigeena waxaan u isticmaali doonaa labadan colorkan noocyada coloradu way badan yihiin colorkan isticmaali doonaa inagu hexa color baynu isticmaali doonaa hexa color waxaa ka hor marka la sameynayo waa number iyo letters iyo symbols waxaasuu noqdaa wuu iskugu jiraa sida halkan oo kale ka muuqataan halkan oo kale maxaa ku aragtaan iminka saddexdaasi waa numbers waa letter waa numbers maxaa ka maqnaan kara symbols marka hexa colorku waa maxay waa hexa colorku waa color ka kooban saddex tiro qaab buu ka kooban yahay symbols letters iyo numbers intaas ka kooban yahay sidaa darteed hexa color baynu isticmaali doonaa insha allah ugu horeyn waxaad copy garayn doonaa kan baynu copy garayn doonaa oo aynu ku apply garaynaynaa copy baan ka qaadan doonaa then photoshopkii waan dul imanaynaa aanu design garaynaynay dabadeetana fx baynu imika taabanaynaa waxaan dhahaynaa waxaan gradient overlay baan tegi doonaa gradient overlay haddaan aan tagno sidaad arkaysaanba qaabkaas ayaa aynu ula soo baxaynaa oo waynu ku apply garaynaynaa sidaad arkaysaanba maxaad aragtaan halkaasaad ku baasti garayna dabeetana okay baad leedahay ka kalena waan soo qaadanaynaa isagana halkaasaad ku baasti garaynaysaa oo saasaad ugu baasti garaynay labada qaabba saasaad ugu baasti garaynaysaa dabeetana haddii aad saa ugu baasti garayso waxaa kuu soo bixina daawade shaygeenii iyo waxaynu design garaynaynay qaabkan buu ekaanaya qaabkan buu yeelanayaa backgroundkeedu oo wuxuu u ekaanayaa sumadii aynu doonayno inaan samayno ayaabuu u ekaanaya intaa kadib haddii aan samayno oo aynu shaqadaa qabanno sida iminka stepki ugu horreeyaynu samayno oo ah inaynu backgroundkii hagaajino intaa kadib waxaa inoo hadhay inaynu samayno waxaan la yidhaahdo shaybiska iyo sawirada iyo waxaas oo dhan inaan kusoo darno waxaasaynu iyadana hadhow samayn doonaa insha allah step by step la socda iminka laakiin waxaan ku horeynaynaa bal inaynu shapeskaa samayno shaybabka inaynu samayno aynu sii design garayno saynu shapeskaa u samayno waxaad samayn doonaa ruler mastarad baynu isticmaali doonaa mastaradaas waxyaaba badan bay naga caawin doontaa mastarada ka ugu horeeya waxaad dhiganaysaa centerka
midna waxaad dhiganaysaa oo horizontal verticalna waxaad dhiganaysaa isagna center labada haddaan centerka dhigano mid kalena waa soo qaadan doonaa anana halkaa dhignaana wax dhici karta saala halkaas kalena gelinaa intaasaynu mastarada isticmaali doonaa mastarada haddaad u baahan tahay halkan kaga soo dhigi kartaa view baad tegaysaa dabeetana maxaad tigta saaraysaa ruler halkan rulerka ayaad tigta saaraysaa ama shortcut kasta isticmaali doontaa control iyo r labadaba waad ku samayn kartaa intaa kadib waynu samayn doonaa shaqadaynu bilaabi doonaa okay daawadayaal waxaanu soo qaadan doonaa waxa la yidhaahdo halkan toolskan isticmaali doonaa ellipse tool rectangle tool baan isticmaali doonaa waxa aad ku samayn doonaa ellipse tool baan isticmaali doonaa ilmaan hadalka ma jiro ellipse tool ayaa aad isticmaali doontaa ellipse tool baan isticmaali doonaa dabeetana ellipse tool marka saa isticmaalo halkaas saa u jeexaysaa shift baad isla qabanaysaa si aanu kaaga qalloocsamin shift inahaasoo kale nu dayn doonaa qaabkaasoo kale markuu inoogu soo baxo ayaaba aynu dhigi doonaa halkan cabirkana weligaa iska ilaali daawade inahaasoo kale nu daynaynaa oo maxaynu doonaynaa inaynu samayno laakiin de horta waxyaaba aynu samaynayno si fiican bay ula socotaan baynu maraynaa shaqada aynu wadno iminka si fiican baan ula socotaan baynu maranaya waxa aynu samayn doonaa waa ellipse toolka halkaa maray shapeka halkaa maray baynu design garayn doonaa sidaa darteed kuwan saddexdan kalena iyagana waynu qaban doonaa shaqadooda oo dee haddaad kaa fahamto kuwan kalena waad iska fahmi kartaa waxaan umalayaa waxaana fahmaysaan oo qaar horena soo samaynay sidaa darteed waxayd ku cusub maaha okay insha allah akhyaaray saasaa u samaynaysaa dabeetana ellipse toolka qaabka markaynu ugu samayno saasuu kuusoo baxayaa qaabkaasaad ellipse toolka horta marka ugu horeysa saasaad ugu jeexaysaa dabeetana adoo siskiisa weyneynaya halkaasaad dabeetana dhiga intaa kadib haddaad dhigto waxaad ka samaynaysaa mid kale aad ka copy garaynaysa isla kan baad mid kale ka copy garaynaysa oo waayo waxaan doonaynaa inaynu ku samayno border baynu samayn doonaa sidaa darteed mid kaleaynu ka samayn doonaa ka copy garaynaynaa kaa dambana xagga hoose dhiga sidaa darteed kii originalka ahaa maaragtay kii originalka ahaa ee nooca ahaa ka originalka ahaa kaasuu ahaa kaa originalka baad salaano kale halka waxaad ku qoraysaa original tool originalka ayaabaad ka copy garanay oo duplicate ka samaynaysaa duplicate uga samaynaysaa halkaasaad tegaysaa right click baad taabanaysaa dabeetana duplicate layer waa kaa duplicate layerka kaasaad saa ugu dul samaynay waayo intaa markay kuu soo baxdo hadhowtana borderka markaad doonaysa inaad ku dul samayso ee copyga duplicate karaysay halkan baad imanaysaa dabeetana borderka waxaad ka dhiganaysaa caddaan baad ka dhiganaysaa hadhowto dabeetana size-ka intaad ka dhigan doontaa waa 2.68 pixel intaasaad ka dhiganaysaa borderka size-kiisa waayo lama doonayo borderka inuu size-kiisu aad u farabato waayo hadduu farabato wuu yaro fool xumaanayaa sidaa darteed intaasaan ugu talagalnay intaasaad hadhow ka dhiganay adiguna okay intaa haddaan ka dhigano oo iminka intaa aan ka soo baxno waxay noo hadhay inaynu samayno iyagana shaybiskan kale iyagana samayn doonaa insha allah shaybiskan kale ayaa aynu samayn doonaa shaybabka kale aynu samayn doonaa insha allah sidaa darteed bal si fiican la socda iyaga shaybabkan kalena waxba kagama duwana kuwii hore oo haddaad kuwa kale haddaynu soo samaynay dheer kaa weyn haddaynu samaynay tusaalahaan oo kale kan haddaynu soo qabanay oo kan weyn samaynay kuwa kalena wax weyn ma laha iyagana waan boobsiinayaa maadaama waqtigu inagu yaryahay iyagana si fiican la socda okay daawadayaal isagana qaabka maad u disagarayn doontaan oo isagana qaabka maad u samayn doontaan maxaynu samaynay iminka waynu boobsiinaynay waayo waqtigaada inagu yar waayo waxaa iska fahmi karaysaan kaa koowaad waa ellipse tool dabadeetana ellipse tool mar hadduu yahay kaa mar haddaan samaynay sidana tusaalahaan qaabkan ba samaynaysaa wax weyn maaha ellipse tool baa saa usoo qaadanaysaa dabeetana shift inta saas kula qabato ayaad saa u jeexaysaa keliya saa markaad u jeexdo waad soo qaadaysaa waxaanu samaynay waa intaasun daawadayaal wax weyn maynaan qaban shaqo weyn maynaan qaban dabadeetana halkaasuna saa u dhigaysaa dabadeetana intaa markaas saa u dhigto borderna waad u samaynaysaa bis wuxuu wax weyn maaha ka warwarina intaa haddaan samayno iminka waxay noo dhamaaday qaybtaa sawiradii baa inoo harharay intayna sawirada baa inoo harhadhay oo u baahan inaynu kuwan sawiradii insha allahu soo geli doono
بسم الله الرحمن الرحيم أخياري waxaynu bartanka kaga jirnaa casharkeenii ku saabsanaa inaynu design garayno bannerkan la yidhaahdo food banner weliba foodkaynu baangaraynayna waxa weeye waa banner yar oo muujinaya oo aynu ku xayeysiinayno cuntooyinka nooca loo yaqaano hamburgerka sidaa darteed designkeeni aynu bartanka kaga jirnaa waynu sii wadi doonaa casharka sida arkaysaanba iminka waxa aynu dhamaynay qaybtii la odhanayay inaynu shaybabkii aynu samayno. iminka waxaynu bilaabi doonaa inaynu samayno waxa la yidhaahdo inaynu kusoo darno sawiradii oo iyaduna qodob muhiim ah ayaynu bilaabi doonaa. sidaa darteed sawirkan baynu ugu horreysiinaa ugu horreyn horta sawirkan baynu laga doonayaa originaalka ah inaynu maxay ku samayno inaynu kusoo darno sawirkii. sidaa darteed waxaad tegi doontaa file, waxaynu tegi doonaa halkay ku qoran tahay place amended, dabeetana sawirkii baa soo dooran doontaa. sawiradan adigu waxay kala soo degtaan halkaan kala soo degay sawirada. haddaan idiin sheego sawiradan halka aan ka helay waxaa la yidhahdaa website-kan ka helay waxaa la yidhahdaa PNG. haddaynu si kale u sheegno PNG ayaa la dhahaa website-kaas oo website muhiim ah oo haddaad google-ka tagto oo aad search garayso waad helaysaa. haddaan idin yaro tuso website-kan ka helay ama website-kan sawirada ka soo qaaday. okay daawadayaal waxaa qoraysaan browserka tegi doontaa, dabeetana google-ka dhex tegaysaa, waxaad ku qoraysaa halkaa PNG oo website-ka weeye. dabeetana gudahaad u geli doontaa. gudaha markaad u doonto halkaasaad kala soo degi doontaa dhammaan burgerska waad search garayn doontaa. tusaale ahaan waxaad leedahay enter ama search baad halkaas taaban doontaa, dabeetana wuxuu kuu soo saari doonaa dhammaan sawirada aad u baahan tahay. marka halkaa waa idinka arkaya waxaasoo sawiraa ayaa ku jira oo cuntooyinka ku saabsan burgerkii noocyadoodii kala duwanaa ayaa halka ku jira. sidaa darteed halkaasaad kala soo degi doontaan idinkuna haddaad u baahan tihiin xogtan iyada sawiradan iyaga. marka website-kan daawadayaal haddaan idin yaro sharaxo si kooban, website-kani muhiimadiisu website-kani shaqada ugu weyn noqota waxa weeye inaad ka helayso dhammaan sawir kasta ama sawir nooc walba aad u baahan tahay waad ka heli kartaa. weliba website-kan wuxuu anfacayaa dadka waxa weeye dadka designerka oo kale maata, dadka wax design gareeya designka dadkaas u anfaca oo website-kan yahay. marka sawiradooda heli doontaa iyagoo bilaa background, without background aad heli doontaa. weliba sawiro bilaa background aad helaysaa oo aad u qurux badan oo si fiican u wanaagsan oo quality leh, high quality ah. sidaa darteed website-kaas kala soo degi doontaan insha allah. haddaynu kusii soconno haddaba casharkeenna waa la soo sawirkan baan soo qaadanaynaa, dabadeetana xagga horean keenayaa. xagga hore markaan saa u keeno waan yara durkinayaa. saasaad u durkin doontaa. dabadeetana markaan saa u durkino waxaan leenahay right click, dhexdiisaan ku shubaynaa, dhexgelinaynaa shaybkaasaan dhex gelinaynaa. create clipping mask ayaad taaban doonaa. right click tayn taabano. sidaad arkaysaanba daawadayaal waxaad aragtaan inuu dhex galay sawirkii. clipping mask markii ku sameynay saas uu dhex galay. sidaa darteed iminka maxaynu dhamaynay qaybtaasaynu dhamaynay. qaybtaa waan dhamaynay waa idinka arkaya. sawirkii waan dhex gelinay. maxaa inoo haray saddexdan qaybooda kale ayaynu iyagana dhex gelin doonaa. waan boobsiinayaa si fiican ha loola socdo. kan labaadna waan dhex gelin doonaa, kanna waan dhex gelin doonaa si fiican ha loola socdo. kaana waan dhex gelin doonaa. sawirkii baad dooran doontaa, fail baad tegi doontaa, place amended, dabeetana waxaad soo dooran doontaa sawirkaagu meesha uu kuu yaallo. dabadeetana kan anigu soo dhex gelinayaa, dabadeetana saasaad waad yaraynaysaa, siskiisa waad yaraynay, dabeetana waad dusha saa uga saaraysaa. weliba haddaad doonto iyadana waad yarayn kartaa. inta saasaa ugu daynaysaa. dabeetana waxaad leedahay right click create clipping mask.
sidaa darteed sidaad arkaysaa maxaa la sameeyey waa la dhex geliyey sawirkeennii dhexdii ku jiraan intaa haddaynu kaga nimaadno qaybta kan aynoo haray isaguna kana saasaynu u geli doonaa oo dhex gelin doonaa inaha waxaan kaga imanaynaa qaybtaa waxaan dhamaynay iminka inaynu sawirada dhex gelinay sidaad arkaysaanba haddaynu sawirkan design garanaynaa waa kan waxaynu dhamaynay intaasaynu dhamaynay oo ah sawirkiinaan dhex gelin waxaa noo haray qoraaladan iyo backgroundka yare dambe inaynu halkaa ku dardarno iyo bahladaa inaynu ku dardarno iyagana waynu samayn doonaa insha allah si fiican loola iminka waxaan ku horeynaynaa inaynu soo dhex gelino backgroundka yare dambe inaan dhex geliyo ayaan samayn doonaa si fiican ha loola socdo ugu horeyn backgroundkaaga ayaad dhex geli doontaa layerkaaga backgroundkiisa ayaan saa u dhex tegaynaa dabeetana waxaan tegaynaa file place amended marka aan tago waxaan tegi doonaa downloadska qaybta downloadkan tegayaa downloadka marka aan tago waxaan soo qaadanayaa sawirkan sawirkaasaan soo qaadan doonaa waynagaa soo qaadanay waxaan umalayaa inaad la socotaan dabeetana waxaan dhigaynaa halkan waa yaraynaynaa sizekiisa waa yaraynaynaa control iyo t baad taaban doontaa waan yaraynaynaa waa soo qaadanaa halkaasaan dhiganaa adabaraaga weliba waa yaraynaynaa intaas weliba lama doonayo inuu noqdo inahaasoo kale aan deynaynaa inahaasoo kale aan deynayaa dabeetana click baan taabanayaa tigtan saa u taabanayaa dabeetana maxaynu samayn doonaa sidaa kaga hari mayno opacity-giisaan yarayn doonaa opacity-gaasaad tegi doontaa 30% baad ka dhigaysa 30 baad ka dhigi doontaa waad yaraynaysaa 30 baad saa ugu deynaysaa 30kaasaad u deyni intaasuu ku kooban yahay sidoo kale daawadayaal waxaad soo qaadan doontaan jebiska yar jebiskan baad soo qaadanaysaan isagana sawirka yar jebiska aynu soo qaadanay iminka ayaad isagana keeni doontaan waxaa iminka sawiraan isticmaalayo o dhan waxaad ka heli kartaan website-ka yaraan iminka idiin sheegay kaasaad kala soo degi doontaan insha allah isagana saasaad ugu ablay garaynaysaan dabeetana click baad taabanaysaan click marka isagana opacity-giisa waan yaraynaynaa waxaan ka dhigi doonaa maxay boqolkiiba 30 meeshaa ugu deynaynaa intaas ayaa aynu ku deynaynaa halkaa waxaad saa arkaysaanba maxaynu usoo dhownahay inaynu qaybtaa dhamaynay waxay noo horay sidoo kale aynu bilaabi doonaa iminka qaybtan la yidhaahdo textiga iyo qoraalada ayaa aynu bilaabi doonaa way si fiican ula socda iyadana waynu goobsiin doonaa si fiican ula socda sidaa darteed texti baad soo qaadanaysaa dabeetana textigaaga marka saa usoo qaadato waxaad ku qori doontaa meesha akhyaaray waxaad ku qori doontaan badeed ayaad ku qori doontaan qofku badeed magacaasaad ku qori doontaan laakiin magacani qof kasta magacu doono ku qoran magaca doontaad ku qoran kartaan maaha qasab magacyadu qasab maaha magaca doontaad ka dhigi kartaan laakiin anigu iminka saad arkaysaanba waxaan ka dhigay sada artaan ba iminka halkan waxaan ka dhigay badeed special burger menu sooma sidaa darteed magaca doontaad laakiin idinku hadhow ka dhigan doontaan laakiin muhiimadda waxa weeye inaan wax qurux badan inaynu abuurno oo design garayno ayaa loo baahan yahay hadafkaynu soconaa waa intaa way dabeetana badeed ayaad qori doontaa farta nooca farta waxaad ka dhigan doontaan farta nooca isticmaali doontaan waxa weeye dancing script baa la yidhahdaa dancing script font weeye waxaad kala soo degi kartaan farta nooca fartan aan isticmaalay fara badan baan isticmaalay farahaan isticmaalo o dhan waxaad kala soo degi kartaan oo kasoo dhowlgaraysan qaybta googlekaad kala soo degaysaan iyadana sidee googleka ugala soo degi kartaan farta iminkana idin tusaya u fiirsada intaasaad qoraysaa dancing script google font dancing script ayaad ku qori doontaan internetka dabeetana click ayaad taaban doontaan click marka taabato wuu kusoo bixi doonaa ka ugu horeeya ayaad dabeetana la degi doontaan oo ku dhufan doontaan ayuu suganaa qaabkan buu kugu soo baxaya hadhowto google fontiska markaad tagto dancing script font noocani waa nooc ka mid a farta aynu isticmaalay maxay sidaad arkaysaanba titleka aynu isticmaalay akhyaaray titleka aynu isticmaalay ee badeed
nooca farta inuu isticmaalay maxaa la yiraahdaa nin nooca farta waxa la yiraahdaa dancing script halkeen kala soo degaynaa google ka tagaysaa dabeetana farti markaa waa qaabkan way fartu waa farta noocana ee qaabkan u qablay garaysan waxaan oo dhan yari weeye dabeetana hadda waxa marka la soo degato waxa ku dhufan doontaa get points waxa ku dhufanay get points marka ku dhufato waxa ku siin doonaa labadan option marka waxa ku dhufan doontaa ka ah download free download ku dhufanaysaa marka si free ah lagugu download garaynaya sidaad arkaysaan halkan maxay noo download garaysmay sidaad arkataanba halka waa tahay noo download gareeyay ee xogtan halka ay lagu download gareeyay ee hadii ku dhufano wataas way noo download garaysan tahay way noo download gareeyay wadi ka arkay maxaad aragtaan inay inoo download garaysatay ayaa aad arkaysaan dancing script full waa tahay noo download garaysatay sidaa darteed halkaas aad kala soo degi doontaan farta waayo waxaan ku xijin doonaa qaybtan la yiraahdo man qorinaa iyadana la yiraahdo special burger menu ayayna qori doonaa farta qaybta kale ee subtitle-ka iyadana si fiican la socda iyadana qaabkaas qaybta hoosena farta nooca hoosena qaabkaas ku qori doontaan special burger menu iyadana nooca farta aynu ka dhigno kale hadaan idin tuso tusaalahaan oo kale special oo kale hadaan idin tuso special waxaan ka dhigay Bobin's burger menu waxa nooca farta waxaad ka dhigan doontaan Bobin's ka dhigan doontaan Bobin'sku hadaan uu ku jirin Photoshop-ka hadaan uu ku jirin wada soo dhigi doontaan oo Google halkeen idin sheegay halkaas aad kala soo dhigi doontaan hadii nooca fartaas aanay ku jirin waa inaad la soo degtaan weeye hadii fartaas aanay ku jirin waxa idinku waajibay inaad la soo degtaan special kana iyadana waxaad ka dhiganaysaa Bobin's iyadoo ah regular iyo qaabki saasaad markaa qaabkaas u samayn doontaan insha Allah inaha hadii hadda halka kaga nimaano bal waxaan u geli doonaa akhyaaray qaybaha kale xiga mawduuceena oo ah inaynu sameeyno waxyaabahan oo dhan toolskan oo dhan isticmaal doonaa rectangle tool iyo qoraaladan si fiican la socdo waxaad soo qaadan doontaa toolska tagi doontaa rectangle tool baad soo qaadanaysaa dabeetana halkaas aad ugu samaynaysaa halkaas ayaad saa ugu samaynaysaa dabeetana halkaas markaad ugu samayso waxa aad dushaad keeni doontaa dusha markaas aad u keento waxaad tagi doontaa effects gradient overlay baad taaban doontaa gradient overlay baad taaban doontaa gradient overlay markaad taabato qaabkan kugu soo baxo waa bedeli doontaa nooca farta colorka waxaad ka dhigi doontaa green color ayaad ka dhigi tan iyadana qaabkaas oo kale aad uga dhigi doontaa iyadoo cadaan iyo weliba ku jiro ayaad saa uga dhigi doontaa dabeetana xogta markuu saa kugu soo baxo waxaanu samayn doonaa qaabka markuu kugu soo baxo waxaan doonaynaa inaan u ekeysino maxay qaabkan oo kale aan doonaynaa inaan u ekeysino si fiican ula socdo markaas aynu ugu ekeysino akhyaaray shaybiskii markaas saasaad ugu samayn doontaan seebaynu ka dhignay waxaad tegi doontaa effectskaas tegi doontaa effectska marka aad tagto waxaad ku dhufan doontaa gradient overlay markaad ka dhigato waxa kuu soo kacaya daaqadan baa kuu soo kacaysa kalarkaad ka dooranaysaa kalarka markaa intaas ka dhiganaysaa greenka iyo qaybta uu isku jiro ayaad saa uga dhiganaysaa dabeetana okay baad leedahay halka normality halka opacity waxaad u doonaysaa 100 halkan oo kale size ka 10 baad ka dhigan doontaa angle-ka 160 baad ka dhigan doontaa style-ka waxaad ka doorantaa diamond qaabkaas inahaas ayaa aad daawadayaal aynu sameyn doonaa inta kadib isla kan baynu ka copy garaynaynaa nooc kuwa kalena waayo waxa la doonayaa kuwa inaan soo wada sameeyno Soomaa afarta midba waxa la doonayaa in copy garayno afarta rectangle baynu copy garaynaynaa isla isaga uma ka copy garaynaynaa okay sad arkaysaan daawadayaal waynu copy garaynay oo duplicate ku sameeynay afartiba waynaga sameeynay sad arkaysaan waxay noo haray afarteeda kalena waa sameyn doonaa afarta kale hareeraha ka xigana waxaan doonayaa iyadana inaan sameeyo si fiican aynu la socono afarta kalena maxaad sameyn doontaa afarta kalena waan sameyn doonaa si fiican aynu la socono iyadana copy waan ka qaadan doonaa duplicate ku sameynaynaa duplicate markaan ku sameyno waa drag and drop ku sameyn doonaa drag and drop
drag and drop aan leenahay waa qaadaynaa halka kale aan dhigaynaa marka dhinaca kale ayaabaha aynu dhigaynaa dhinaca kale marka aynu dhigno waxaynu u ekaysiinaynaa kan isla kan baynu u ekaysiin doonaa tusaale kaa ugu horeeyo kale kaa ugu horeeya maxaan ka dhigi doonaa waan yareyn doonaa waynu yareynaynaa shift adoo isla haya tusaalehaan intaas oo kale gudaynaysaa kaa ugu horeeya kalena waad yareynaysaa isagana saas ugu yareynaysaa insha allah shift baa isla qabanaysaa okay saa markaynu u yareyno insha allah waxaynu haray haddaba qoraaladii inaan ku qorqorno qoraaladii baynu ku qorqoraynaa qoraaladan hadda waad iska garanaysaa qaabka loo qoro waxaa idin sheegi maayo iyadana waynu boobsiin doonaa ee si fiican ula socda waxaynu sameynaa khiyaaray sidaad arkaysaan ba waynaga halkaa ku qornay cheeseburger waxaynu sameynay cheeseburger colorkan ka bedelaynaa waxaynu ka dhiganaynaa maxay madow black baynu ka dhiganaynaa madow markaynu ka dhigno qaabkaasaad hadhow markaa aad adiguna ugu qoraysaa saad halkan marka aragtaan cheeseburger ayaa aynu ka dhignay way wada waynaga halkaas arkaynaa wata cheeseburger way isla markaa nooca fartaad ka dhigan doontaa waa maxay waa bobbins baad farta ka dooranaysaa waxaana ka dhigaysaa ball italic baad ka dhigan doontaa farta sizekeeda intaasaad ka dhiganaysaa colorkana waa madoobeyni way intaa kadib isla iyadu maynu duplicate ku samayn doonaa taasu maynu duplicate ka sameynaynaa deetana waan soo qaadan halkana dhiga tanna maxaynu ka dhigi doonaa heart baynu ka dhigi doonaa heart heart baa iyadana ka dhigay daawadayaal inahaas qaabkaas oo kale aad u sameynaysaan insha allah dabadeetana saasaad magacyada ugu qorqoraysaa mid kasta magaciisa ayaad saasaad ugu ablay garaynaysaa insha allahu tacaala waxay noo hadhay haddaynu barnaamijkeena kusii socono waxay noo hadhay oo keliya ta iminka qoraalka yar oo kale inaan ku qorqorno iyo sawirada yar halkaa jira inaan keenkeeno kuwana waynu samayn doonaa ee si fiican ula socda tusaalahaan oo kale waxaan soo qaadan doonaa yaanyadan maxbuubtan baan soo qaadanaynaa deetana waad yareynay waynu yareynaynaa saynu halkaa u dhigno waynu yareynaynaa insha allah tusaalahaan oo kale inahaasoo kale aan u daynaynaa qaabkaas oo kale ayaabaha aynu inahaasoo kale aan ugu daynaynaa inahaasoo kale nu daynaynaa intaa marka aynu sameyno ayaabaha waxaan sameynaynaa inaha marka aynu sameyno waxaan soo qaadan doonaa iyadana yaanyadii baynu waxaan soo qaadan doonaa basbaaska yar baan soo qaadanaynaa waxaan dhigayaa halkaas isagana saa u dhigayaa mana inaad la socotaan isagana halkaasaan saa u dhigay sidaa halkan marka arkaysaan dhinaca kale u jeedin doonaa right click baan leenahay flip horizontal dabadeetana qaabkaasaan ugu dubkinaynaa saasaan u gelaynaa islagaynu duplicate ka samayn doonaa mid kalena qaadi doonaa oo isaguna jiraya isla halkaasaan dhigi doonaa isagana duplicate baynu ku samayn doonaa insha allah flip horizontal waxaanu hoos marin doonaa ka hoosaysiinanaa qaabkaasaan ugu daynaynaa waxaanu yareyn doonaa opacity-giisa boqolkiiba 30 baan ka dhigi doonaa 30 baynu ka dhigaynaa isla kana 30 baan ka dhigi doonaa
isagana waa inaga tedi ka dhignay xabuubtana waxaan ka dhigi doonaa tedi intaa kadib waxaad aragtaan qaabka inaan u sawirno waxaa inoo hadhay hal mid baa inoo hadhay kaana waa soo qaadan doonaa waa kan isaguna ka baynu isagana soo qaadananaa waa yaraynaynaa waynu qaadanaa halkaasaan dhigayaa weliba waa yarayn doonaa waa halkaasoo kale aan dhigayaa laakiin maxaan ku sameynaynaa colorkiisa waa bedelaynaa waxaynu ka dhiganaynaa color overlay baa tegi doontaa color overlayga markaas aad tagto waxaad ka dhigi doontaa midabkiisa waxaad ka dhigan doontaa yellow markuu saa kugu noqdo opposite-ga waad yaraynaysaa in yar tusaale ahaan oo kale ilaa inahaasoo kale aan geynaynaa qaabkaasoo kale isagana u gelaynaa maxaa inoo hadhay insha allah gabagabadii baynu kusii dhownahay daawadayaal waxaa inoo hadhay inaynu soo gelino elliptical kulkale halkaa ku jira iyo qoraalka yara dhexe isagana waan boobsiin doonaa shapekeed baan soo qaadanaynaa halkaasaan dhigayaa waa qaadayaa halkaasaan dhigayaa waa yaraynaynaa waxaan dhigayaa halkaa labada sawir iska galaan ayaabaan dhigayaa insha allah kayra dukinaynaa kan dabadeetana saa markaynu u sameyno qaabkaasoo kale markaan u sameeyo waxaynu dhihi doonaa okay akhyaaray sida arkaysaanba waxaynu sameynay qaybtaasna iyadana sameynay boqolkiiba content limited over iyadana waxa la doonaya qaabkaas kale inaad u sameyso haddaynu zoomta kusoo dhaweysano aan idira tuso oo taha sida arkaysaan waxaad aragtaan boqolkiiba content limited over ayaa aad aragtaan sidaa darteed si fiican ayaad ugu fiirsanaysaan waxay noo hadhay haddaynu ku noqono design garaynaynay waxay noo hadhay keliya ta maxay qoraalkan yar baa inoo hadhay isagana bal waynu samayn doonaa qoraalladan waa iska fahmi kartaan waxa wax weyn maaha isku daya bal idinkuna iyadana khiyaaray saas u samayn doontaan www.xasan.com halkaa website-kaad gelin doontaan halkaana phone numberkaaga intaayana waa order now waxa weeyaan waa rabitaanka toolka soo qaadanaysaan dabeetana qaabkaas ugu sameynaysaan nooca afartan waxaad ka dhigaysaan bobins iyadoo regular inahaas colorkana caddaan baad ka dhigaysaan qaabka weeye saan u malaynayo hal qodob unbaa inoo hadhay halka qodob aan kusoo gabagabayn doono casharkeena maanta weeye rigigaa yare halka ku jira halkan isagana soo gelin doonaa insha allah intaa kadib waynu dhama gabagabaynay casharkeena fargalkiina soo qaadan doonaa isagana waa kan waan yareynaynaa insha allah halkan baan dhigaynaa halkan ayaan dhigaynaa halkaan markaan dhigi doonaa okay baad leedahay isla isagu maynu duplicate ka samayn doonaa mid kale dabeetana waynu qaadi doonaa halkaas saraan dhigi doonaa halkaas sare ayaabaa aan dhigayaa waa yaraynaynaa sizekiisa soo yaraynaynaa dabeetana waad qaadaysaa halkaasaad dhigaysaa okay baad leedahay inahaasoo kale aad u daynaysaa bartankana waa dhigaysaa weliba good dabeetana inahaas ayaa waynu ku gabagabaynaynaa daawadayaal intaasuu ku dhayay maanta marka casharkeenu si fiican baynu u design garaynay intaa kadibna inahaas ku leeyahay si fiican baynu u gabagabaynay oo u design garaynay bal idinkuna isku daya inaad kan samayn kartaan
cashirkeena maanta intaasaan kusoo gabagabayn doonaa hadhowtana waad save garaysanaysaa oo hadhow markaad save garanayso waxaad tegi doontaa save as markaad tagto waxaad leedahay save on computer save as computer markaad tagto waxaad tagaysaa save as dhufan doontaa save as markaad saa ugu dhufato dabeetana waxaa kuusoo bixi doona meeshaas shabak baad ka dhigan doontaa hadhow halkaas kasii dooranaysaa insha allah inahaas ayabaynu ku gabagabayn doonaa maanta